dhegaystayaal soomaalidu waxay ku mahmahdaa erayna la kala odhan og eebbana la kala baryi og mahmahdaasi waxay mar walba i xusuusisaa allaha u naxariistee gabayaagii caanka ahaa ee la odhan jiray cabdi iidaan faarax. cabdi iidaan wuxuu ahaa ragga aan diriqsane maansada tirinteeda hibada dhabta ah u lahaa. wuxuu dhashay 1924 1980kiina hargeysa ayuu ku iishay. wuxuu ka mid ahaa xilliyadii dambe tiirarkii xoogga lahaa ee maansada soomaalida cuskiinada u ahaa. cabdi iidaan xer cilmi weligii ma noqon, aqoonta diintana laguma cawri jirin. ha yeeshee waxaan u haynaa tixo maanse diineed lagu magacaabi karo oo kuu fasiri kara sababta aan maansayahanada ugala maago inaan caamo ku sheego amaba aan ku tiriyo. 1967kii ayaa cabdi la xiray. xukun dheer ayaa ka dul yeeray. 2 guug ku dhowaad kolkii uu qabiraa ayay kulmeen xabsigii uu ku jiray sarkaalkii taliyaha ka ahaa, kaasoo ku yidhi cabdow in lagu cafiyaa la arkaaye madaxweynaha dalka arsi codsi ah u qoro. markaas baa waxa uu eebbe afkiisa ka keenay arsi waxaan u qoranayaa ilaaha weyn ee awoodda kama dambaysta ahi ay isaga ku urursan tahay. gabay uu arsi ku magacaabay oo rabbi bari ah ayuu bilaabay kolkii uu sarkaalkii ka tegey. gabay si aan laaxin lagu ogeyn uu ugu faahfaahiyey awoodaha magacyada iyo koosha uu eebba mudan yahay, isaga oo la moodo magacyada iyo sifooyinkaa wan wanaagsan inuu waayo badan baranayay guunayada diintana uu ugu xeraystay. wuxuu rabbi bari cabdi ku yidhi ilaaha loo baahan yahe baahaninow boqorkayow heedhe, ilaaha weligii baaqiga noqdayow boqorkayow heedhe, ilaahaan xaq lagu beenininow boqorkayow heedhe, ilaaha waaxidnimo loo bartayow boqorkayow heedhe, ilaahii dunida baaraxa khalqayow boqorkayow heedhe, ilaahii inuu burburin sheegayow boqorkayow heedhe, birtii culus allaha kala jabshow boqorkayow heedhe, ilaaha ciidankii badan yahayow boqorkayow heedhe, bini aadni waa meel sokee boqorkayow heedhe, bismillaahi waa culustahee boqorkayow heedhe, ilaahii dartii lagu baryayow boqorkayow heedhe, ilaaha deeqsinimo loo baxshayow boqorkayow heedhe, kolka bacadka yoolkiyo la tago balalqiyaamaa nin kastoo badraanihi kolkuu biilna tari waayo ilaaha xukunka keligii bogtow boqorkayow heedhe, barjanno iyo cadaabtuu khalqiga ugu bushaareeyey barba meeluu geeyaba korkuu kala boqoolsiiyey ilaahii laba u kala bayriyayow boqorkayow heedhe, bidhaantii jirtaba kii arkow boqorkayow heedhe, bad wax mara biriga wax jiriyo buura dabadooda in bog leh iyo in baabaca dhigtiyo baalka lagu duulo bushilmo nool allaha quudiyow boqorkayow heedhe, biyo oday intuu iga khalqay iyo biliq yaroo dhiiga bilcan dumara uurkeed intuu igu barwaaqeeye barna aniga oon qabin isagaan igu bokaysiinin ilaahay nolosha igu soo baxshow boqorkayow heedhe, baabaca addoon baan dhigtaye boqorkayow heedhe, boqolkaaga magacee midla baan baaqa maqashiine ilaahow xadhigga sahal iiga bixi ku baryootamaya buu yidhi maalintaas. isbeddel xoogle ayaa dalkii ka dhacay. xukuumaddii cabdi u xiraa ee rayadka ahaa ayaa la afgembiyey. waxaa la soo gaaray 22 Oktoobar 1969. maalintaa ayaa waxaa taladii la wareegay saraakiil xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsanayd, kuwaasoo markii ay guulaysteen ooda ka qaaday maxaabiis fara badan oo ayaankiisa uu cabdi iidaan ku jiray. ha yeeshee 2 guug kadib ayaa boolisku cabdi iyo rag kale haddana soo qabqabtay. ammaanka qaranka dembi ciqaabeed ku lug leh ayaa lagu soo eedeeyey. dabadeedna maxkamad baa waxay ku xukuntay xarig aan ka yarayn kii uu dhowaanta cafiska kaga soo baxay, waxaana la geeyey isla xabsigii uu ku jiri jiray. muddo hadduu halkaa ku sugnaa ayuu rag tara kama dhammaatee maalin maalmaha ka mid a wuxuu ku tashaday inuu baxsado oo meesha iyo kareedka yaalba naftiisa ka samata bixiyo. goor aan indhuhu badnayn ayuu derbi dheer iska jaray. dhulka ayuu isbilqay, dabadeedna intuu kaca isyidhi ayuu hinqaday. mase lug baaba baf ah oo wuu jaban yahay. taah iyo alalad baaxiyey. wax yar kadibna askartii baa isaga oo kuududa halkiisii ku soo dul joogsatay. isbitaal baa loola cararay.
inta la soo kabay baa kobtiisii lagu soo celiyey. maalintaas bay saraakiishii xabsigu waxay guddoomiyeen cabdi in halis loo aqoonsado inkastoo oo jabnaana silsilad adag sariirtiisa lagula xidho. isaga oo xaaladdaa adag ku sugan ayaa maalintii dambe waxaa qolkii uu ku jiray ugu soo galay taliyihii jeelka oo ku yidhi, cabdow waynu is ogeyn oo waataad berigii hore ilaah bariiday ee uu xabsiga kaa saaraye maantana maxaad odhan? hadalkaas sarkaarka isaga oo la yaaban ayuu isla goobtii ku tiriyey tixdan gaaban asii macnaha weyn leh. wuxuu yidhi, waryaa sarkaalow waxaan odhan mar wax bixiye bini'aadmi baa lagu maleeyaaye adigaan khasnadahaagu maran mahade buuxaaye adiguu ku soo magan galaa ruux madluunihiyo kol haddii miciinow la yidhi meel kalaan jirin. maqribkay cadceeddu u dhacdo iyo muuqashada waaga madowga iyo iftiinka isbeddela maalinya habeenka munasirul qur-aankow fadliga maxamed kaahiisa iyo magaca weynee cashiga yaan makaansadaaye haddana sacabadaydii madhnaa meeshii soo dhigaye maantana allahayowna furo kuu mataan nahayb. alaabtaasna baryadiisii kuma hungoobin malihiisiina kuma khasaarin. magaca weyn ee eebbe ee haddii lagu baryo aan lagu qadin ayuu cuskaday. saa ilaah baa furtay oo xabsigii halhaleel uga saaray. haddaba ma yaab bay leedahay haddii aan la yaabno sida qaarkood culimmo iyo caamo intay dadka ugu qaybiyaan ay indha adeygooda maansayahanada caamada ugu daraan. dhegaystayaal barnaamijkeenni fanka iyo suugaantu maanta halkaa aynoo joogo.